waxaad meeshan ku aragtaan waa wiil Soomaaliyeed oo galabta halkan iyada ah isaga oo wax taagada iyo wax ujeeda midna lahayn goobtan iyada ku qarxay kaasoo sababta uu isu qarxiyay ay ahayd isagoo jid cadaa haya oo wadada iska haya ya ka hor intii uuna isqarxinin waxa arkay ciidanka nabad sugidda sida darteed markii uu goobtan iyada la soo leexday waa la daba socday khaasatan waxa daba socday ciidanka dharcada markii uu dareemay in uu gacanta ku jiro naftu wax ka maraysin weeyay inuu isqarxiyo marka sidaad la socotaan sababta ku kalaftay ninkan inuu isqarxiyo oo ujeedadii iyo hadafkii iyo ujeedadu lahaa uu gaari waayay waa fashilin ay fashiliyeen ciidamada amnigu marka waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha shacabka ee Kismaayo iyo bulshadan nawaaxigan degan ee maanta arkaysa qofka meedka ah ee xaaladiisu meesha aad arkaysaan cid joogta iyo cid maraysa iyo midna aan jirin wax uu u dhintay iyo wax uu ka dhintay iyo sabab u dhintay midna aan la garanaynin aan wax haba yaraatay hadaf lahayn in ay ka feejignaadaan ilmahooda ay ka fiirsadaan dad ay mar walba ka wacyi galiyaan dhalinyaradooda sababtoo ah waxa fiican qofku haddii uu sabab u dhimanayo in uu wax hadaf iyo wax dan iyo wax ujeeda u dhinta ay jirto laakiin isagoo muwaadin Soomaaliyeed xor ah cidna aan qisaas iyo dhibaato iyo ayna ku haynin haddii ay dhici lahayd inuu isdhiibo oo marka iyada laga furo waxa dhici lahayd inaan waxba la yeelin loo la dhaqan celiyo wax loo sheego maskaxda laga dhaqo marka waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha reer Kismaayo ee sida habsamada leh wanaagsan noola shaqeynaya in ay ka wacyi galiyaan kana feejignaadaan xaaladahan hadda dhacay oo kale mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaan u mahadcelinayaa ciidamada ammaanka ee sida sharafta leh iyo wanaagga leh uga badbaadiyay qaraxa iyada goobihii uu ka socday ee u suurtagelin Ilaahay baana mahad iskale marka aad iyo aad baan u mahadsantahay